Well, it's very important that all the Somali community vote. One of the privileges of being a citizen of the United States is the opportunity to decide who your leaders will be. And I'm very proud of the fact to be the only candidate who has Somali staff, who has come repeatedly to the Brian Coyle Center, who has gone to visit many of our community gatherings for the Somali community. Last night I was at the Convention Center for a very interesting set of meetings where the Somali community was gathered to talk about the role of youth and young people. August 10th is the primary election. I'm a Democrat. On August 10th is when we will decide who the Democratic candidate is. There are a number of candidates who are running, but only one candidate for the last 15 years has been working closely with the Somali community. And I need people to vote on August 10th. So if people live in Cedar Riverside, they can come to the Brian Coyle Center on August 10th to vote. And I'm going to work with all my Somali organizers, and we have many Somali people working on the campaign. But people need to know August 10th, which is the first day of Ramadan, is the day for voting. And so on that very important day, the first day of Ramadan, if people can take time to make sure that they vote, and if they need information, they can get that from our campaign. And our website is entenza.com. So that's ENTENZA.com. And we have a Somali language page on our website as well. daawadayaal maat wuxuu yiri waxaan ahay musharaxa kaliya oo leh shaqaale Soomaaliyeed ay u shaqeeyaan oo shaqaalaha ka tirsan yihiin marka in badan baan ka qayb qaato yiri shirarkooda tagay ujeedada aan rabo iyo waxaan soo bandhigay waxay tahay waxaan idinka codsanayaa in bisha 8 August 10keeda oo qiyaastii ku beegnaanayso Ramadaanka markuu bilaabmayo in la codeeyo oo la ii codeeyo si aan kursiga ku helo xalayto waxaan tagu yiri convention centerka waxa ka jirta muxaadara ka jirta marka xalay waxa laga hadlayaa qaybta dhalinyarada ee ka qaadanayso horumarka dadka marka wuxuu yiri meel kasta ay dadkeena ku shiraan Soomaalidu waan tagaa waan ka qayb qaataa dadka degan Cedar Riverside Brian Coyle ayaa codku ka dhici doona taariikhdana waa August 10 bisha 10keeda ama Ramadaanka koodiisa marka hadaad u baahato macluumaad dheeriya website-kiisa waxa weeye www.entenza.com af Soomaalina oo ku qoran internetka labada macluumaad waa ka helaysaa I will take a call. Hello. 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 Assalamu alaikum. Alaikum salam. walaal magacaaga iyo su'aashaada su'aashaadu waxa weeye magacay waa Ali meesha ay murashaxiintu ku kala horeeyaan waxa weeye way qofkii magaalooyinka ka campaign gareeya baa inta badan hela doorashada magaalooyinka yaryar ka campaign gareeyay hay ashadu waa taa magaalooyinka dadka ka campaign gareey dad magaalooyinka dadka ka ololeeya maatri magaalooyinka yaryar ma ka soo campaign gareysay macnaha ha magaalooyinka yaryar ha hay mahadsanid Ali. Thank you. Ali's question, the viewer, is: Did your campaign to the small towns where other Somalis live? That is an excellent question. I am very proud that I have been doing that. I have been to Rochester to go to the Somali Charter School in Rochester, and there met with the elders of the community and with the religious leaders as well. I've also gone to Madelia, where there are many Somalis, to St. Cloud, where there are many Somalis. But we are continuing to go out into rural Minnesota. One of the things that people in the political
culture have forgotten is how powerful the Somali people are if they vote. And my challenge to all of the people who are listening today is that in democracy, your power is in voting. Other campaigns, they're not paying attention because they think Somalis won't vote. But I believe that the Somali people will make the difference in the election. And that's why I have so many Somali staff, so many Somali volunteers, and why I have been going to Somali schools, to the community centers, to Brian Coyle Center, to different meetings, to the mosques, at various places like that. daawadayaal su-aashii jawaabteeda wuxuu yidhi haa tuulooyinka yaryar waan tagaa waxaan tegay register waxaan la kulmay odayaasha duqeyda iyo mashaa'iikhda waxaan kaloo tegay st cloud iyo tuulooyinka yaryar ee soomaalida ka shaqeyso dadka musharaxiinta ah wuxuu yidhi dadka soomaalida codkooda ma moodaan inuu yahay wax cod awood leh wadankan america dimuqraadiyad baa ka jirta qofka awoodiisa waa qalinka uu ku voodo ayuu cod ku leeyahay marka idinka waxaan idiin soo jeedinayaa dadka Soomaaliyeed codkiina ogaada inuu awood leeyahay oo awoodii aad qof wax uga qaybsan karto inay tahay codka saas u ogaada haddana telefoonka salaamu calaykum hallo salaamu calaykum walaal calaykum salaam walaal magaca iyo su-aasha magacayga Ibrahim baa la yiraahdaa ninka hadda halka ka muuqda ma dimuqraadi ama waa republican waa dimuqraadi Democrat waa gatay waa mahadsan yahay insha Allah waxaan isku dayaynaa inaan u foodgarayno sababtoo ah republicanku waa fiican yahay waa isku wanaagsan laakiin ninkii hadda hore baa wuxuu baan kulay waxyaalo badan baan anigu ku dhaliilsanahay marka hadda anigu bardo waxaan jecelahay in isaga laga bedelo oo ninka la qabsado haye Ibrahim said he asked if you are Republican or Democrat. Only Democrat. Yeah. And then he said, you know, there's a lot of issues he had with the current Republican governor. And he said, I want that to be changed. He said, you have my vote. Good. And I'll tell my friends. Well, and what I want your caller to know is how important I think it is that we get change. Because for the last 8 years, we've had a Republican. We've had Tim Pawlenty. And the Republican, Tim Pawlenty, has had policies that attack immigrants. And I believe have been disrespectful of the culture of many of our Somali Minnesotans. And I think that's why I have so much support from the Somali community, because I have been meeting with the religious leaders, with the elders, with the community leaders, reaching out to the youth, and we need a Democrat. But August 10th is when we will decide which Democrat. And there is only one Democrat who has been spending so much time working with the community. I've been to Brian Coyle Center many, many times, and what I hear from the people there is they know that I'm the only candidate that they see at the Brian Coyle Center and at many other places across Minneapolis and the state. daawadow wuxuu ku yiri waa mahadsan tahay su-aashaadii wanaagsanayd Republicanka ninka la yiraahdo Tim Pawlenty oo 8 sano una haysto yiri gobolkan uu governorno ahaa waxyaabo badan oo waxa jira uu uga soo horjeeday dadka muhaajiriinta siiba dadka Soomaalida in badan waxaan ka arku yiri xoogaa xushmad darro uu ku sameeyay dhaqankooda August 10keeda ayaa dhacaysa musharaxida ama isla reebida xisbiga dimuqraadka doorashadiisa marka waxaan ka codsanayaa inaad maalintaas hadii la yiraahdo doorataan anigu aad baan ula kulmaayo wadaadada waxaan la kulmaa dadka caaqiliinta waayeelka eldariska dhalinyarada marka waxaan rabaa inaan idin la shaqeeyo si aan wax uga bedelno we'll take another call hello assalamu alaykum alaykum salaam ay walaal magacaha and your question su-aashaada walaal is for hello your name first please we lost the call you know there's a lot of people don't know we had the record breaking tornado yesterday my brother in Germany sent me an email this morning saying what happened in Minnesota will you share a little bit you know if things like that happen I haven't seen I haven't heard anything from the current governor about that event if God forbid things happen like that what is your plan
to inform President